السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin dheeri oo ka soo baxaya weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha aadan Cabdulla Cismaan aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo 5 qof oo ajaanib ah oo kamid noqotay dadkii ku dhintay weerarkaasi waxa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka taliye ku xigeenkii garoonka diyaaradaha aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay in dawladdu ay ku lug lahayd fududeynta weerarka lagu qaaday gagida diyaaradaha aadan Cabdulla Cismaan aadan Cadde ee magaalada Muqdisho رئيس الوزراء روبل oo looga guuleystay hay'adda nabad sugidda kuna fashilmay inuu ka hortago magacaabista Cabdiraxmaan Dheere hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen oo kaga digay xildhibaanada ka soo baxay deegaanada maamulkaasi in ay u codeeyaan musharaxiinta garabyada mucaaradka isagoo dul dhigay amar culus iyo Siciidan iyo Axmed Madoobe oo isku khilaafay shakhsiga noqonaya gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobaya oo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkan aan idinku sheegay faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa weerarkii hay'adablay hubaysan ku qaadeen xayndaabka xirada xalane oo uu ka agdhow yahay garoonka diyaaradaha aadan Cabdulla Cismaan aadan Cadde ee magaalada Muqdisho halkaasi oo rag hubaysan ay gudaha u galeen saacadana ay ka dagaalamayeen ugu dambeynse weerarkaasi la soo afjaray ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab ku qaadeen xirada xalane ee magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen booliiska Soomaaliya afayeenka booliiska Soomaaliya gaashaan la Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in 6 qof ay 5 kamid yihiin ajaanib isla markaana uu ku jiro askari ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM qofka lixaadna uu yahay Soomaali wuxuu inta ku daray dadka dhintay ay sidoo kale ku jiraan tababarayaal ka caawiya dawladda dhinaca tababarka qaraxyada balse ma uusan shaacin dalalka ay ka soo kala jeedaan tababarayaasha ku dhintay weerarka afayeenku waxa uu sheegay in weerarka ay qaadeen laba kamid ah kooxda al-shabaab isla markaana la qaarajiyay labada dagaalyahan ee weerarka qaaday waradan la xaqiijinaya sheegay inay suurtagal tahay in ragga weerarka fuliyay ay gaarayaan ilaa 4 ruux qasaaraha ayaa laga cabsi qabaa inuu intaasi ka bato waxaana weerarka oo ay al-shabaab sheegteen mas'uuliyadiisa uu noqonayaa kii ugu qasaaraha badnaa ee ay ku qaadaan xirada xalane oo ah halka la sheego inay tahay tan ugu amniga badan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo xitaa loo qorsheeyay inay ka dhacdo xayndaabka xirada xalane doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo alaaba lagu qabto teendada Afisioni oo ay ka dhacday doorashadii ugu dambeysay ee uu farmaajo ku soo baxay weerarka ayaa dhaliyay hadalhayn iyo shaki xoogan oo ku aadan sida loo abaabulay maadaama lala beegsaday xiro amnigeeda si weyn loo ilaaliyo xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana rasaas laga maqlayaa gudaha xirada xalane oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM sidoo kalena ay ku yaalaan safaarado waaweyn oo ay dalalka reer galbeedku ku leeyihiin Soomaaliya xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook wuxuu ku sheegay in weerarkan uu saameeyay duulimaadyada gudaha iyo dibadda oo istaagay wuxuu sheegay Mahad Salaad in 5 sano ka hor hangarkii Afisioni ee lagu doortay xukunka dalkana lagula wareejiyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in xabad ay ka dhex socoto duulimaadyada gudaha iyo dibadda ayaana mar qura istaagay sida uu Mahad Salaad sheegay waxa kale oo weerar afka ku qaaday maamulka Farmaajo isagoo shaaciyay inay ayaan daro tahay in hoolkii lagu doortay 5 sano ka hor Farmaajo ay maanta xabad ka dhacayso ay al-shabaab gudaha u galeen dhowr iyo 10 sano meel al-shabaab aanay weligood tagin ayuu sheegay inay weerar ku qaadeen oo ay si fudud ku galeen talaabadaasina ay tahay mas'uuliyad darro weyn oo soo wajahday dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo tuhun xoogan ayaa hareeyay sida uu weerarkan u dhacay ila surdoon oo la helay ayaa sheegay in maalmihii dambe ay soo ogaadeen in weerar lala damacsanaa taasi oo la isweydiinayo sida looga hortagi waayay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay fududeeyay weerarkan inkastoo aan warkan wali la xaqiijin isla markaana la sheegay in la geeyay kontaroolada ciidamada ammaanku ay ku sugnaayeen irida Marina Gate ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho laga soo galo dhinaca iskool Buluusiya ku yaala halka oo dablaydu ay ka galeen muddo ku dhow 2 saacadood ayay al-shabaab ragga ka tirsan ka dagaalamayeen gudaha xayndaabka xirada xalane iyagoo dilay askar ka tirsan AMISOM kuwa dawladda iyo sidoo kale saraakiil uu ku jiro Cabdiraxmaan Aar oo loo yaqaan Faranuug oo ahaa taliye ku xigeenkii amniga madaarka Muqdisho oo weerarka ku dhaawacmay
hase ahaatee ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa waxa ay ku guuleysteen inay soo afjaraan weerarka iyo raggii ka tirsanaa al-shabaab ee u daatay xayndaabka xerada Xalane oo ahayd halka ugu amniga badan Muqdisho. sawirro iyo muuqaalo la soo duubay ayaa la arkayay ciidanka Haramcad oo qaaf feejignaan ah u dagaalamaya iyaga oo ku sugan aagga teendhada Afisiyoni, waxaana lagu ammaanay inay toogteen raggii weerarka goobta ku qaaday oo ay qaarajiyeen, balse muran xoogan ayaa weli ka taagan sida ay raggan al-shabaab ka tirsan ku galeen xayndaabka Xalane oo ahayd bar si weyn amnigeeda loo ilaaliyo, isla markaasna xitaa sida xayndaabka Xalane amnigiisa loo sugo aan loo ilaalin amniga madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir kana mid ah midowga musharaxiinta ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay soo gaareen digniino isi soo tarayay oo ku aadan amnigiisa shakhsiga ah iyo in la qorsheynayo weeraro lagu qalqalgelinayo amniga laguna abuurayo cabsi gelin si ugu yaraan doorashada looga weeciyo halka loogu talagalay oo ah teendhada Afisiyoni. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in weerarkii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde aysan al-shabaab xoog ku soo galin gudaha garoonka, balse ay jiraan dhinacyo la shaqeeyay oo u fududeeyay in ay bartilmaameedkooda gaaraan. al-shabaab ayuu sheegay inaanay xoog ku galin gudaha, isagoo oo sheegay inay caddahay in lala shaqeeyay loona fududeeyay howlgalka. waxaa kale oo uu intaasi ku daray inay muuqato in weerarkii maanta uu jawaab u ahaa fariintii ahayd in doorashada guddoonka baarlamaanka lagu qabto teendhada Afisiyoni. dalka ayuu sheegay inuu ku jiro marxalad xasaasi ah oo kala guur ah, welina hay'adihii amniga waxay gacanta ugu jiraan sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame koox aan sariig lahayn oo wada kasta u maraya sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xaqiijinta dantooda shakhsiga. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in intaan ka badan uusan Rooble indhaha ka laaban karin mas'uuliyadda ka saaran dalka, gaar ahaan amniga iyo howlaha xilwareejinta xilliga kala guurka. wuxuu ugu baaqay xukuumaddu inay qaado tallaabooyin muuqda oo dib u habeyn loogu sameynayo hoggaanka hay'adaha amniga, xilkoodana loo dhiibo shakhsiyaad lagu aamini karo amniga dalka, farahana kula jirin siyaasadda iyo doorashooyinka. haddii aysan taasi degdeg u dhicin, waxa uu sheegay inay ka dhalanayaan in shacabku ay dowladda ka aamin baxaan oo ay si iskooda isku hubeeyaan amnigoodana sugtaan, sida uu sheegay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka tirsan mudanayaasha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. weerarka lagu qaaday xayndaabka xerada Xalane oo uu ka agdhow yahay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa ku aaday iyadoo oo maalmaha soo socda la rajaynayo in isla xayndaabka Xalane lagu bixiyo shahaadada xildhibaannimo ee mudanayaasha ku biiray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. inta kadibna waxaa loo dareeri doonaa doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo ay ku xigi doonto doorashada madaxweynaha oo loo qorsheeyay isla xayndaabka Xalane ee Muqdisho. xerada Xalane waxaa degan safiirada wadamada reer galbeedka oo uu ku jiro safiirka Mareykanka ee amnigiisa sida weyn loo ilaaliyo, kan qaramada midoobay iyo sidoo kale ciidamada AMISOM iyo saraakiil kale oo muhiim ah. waxaa ku yaala hoteelo amnigooda si weyn loo sugo oo ku teedsan aagga gegida diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo oo ay hay'adaha ajnabiga ah ee shisheeye ee dhinaca amniga qaabilsan ay tuhun gelinayaan sida uu weerarkan ku dhacay. baaritaan ayaa durba bilowday ka oo la xiriira cidda fududaysay sida uu u dhacay iyo suurtagalnimada ku lug lahaanshiyaha dhinacyada laamaha amniga ee jooga baraha koontaroolada ee laga ilaaliyo amniga xerada Xalane iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee weerarka ay al-shabaab ka fuliyeen gudaha xerada Xalane ayaa waxa uu ku aaday sidoo kale iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyay digniin laga muujinayay amniga caasimadda oo faraha ka sii baxayay, isla markaana ay al-shabaab ku goodiyeen inay ka geysan doonaan caasimadda weeraro aan kala go' lahayn inta lagu guda jiro u diyaargarowga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. ciidamada ammaanka ayaa habeenadii ugu dambeeyay heegan la geliyay, inkastoo aanay ku guuleysan inay hor istaagaan weerarada noocaani ah oo lagu tilmaamay kuwa aan si fudud loo fulin karin maadaama dablay hubaysan ay qayb ka mid ah xerada Xalane galeen saacadana ay ka dagaalamayeen. madaxweyne Farmaajo ayaa hay'adda NISA kaga guuleystay Rooble iyadoo uu ra'iisul wasaare Rooble ku fashilmay inuu hor istaago isku dayga madaxweyne Farmaajo ah in Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo taliyaha rasmiga ee hay'adda NISA. waxaa la filayaa in toddobaadkan dhexdiisa lagu dhawaaqo agaasimaha cusub ee hay'adda NISA ah ee bedeli doona Yaasiin Farey oo xilkan u hayay si ku meel gaar ah dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
agaasimaha cusub ee NISA ayuu madaxweynaha xafiiska sii joogay ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Fahad Yaasiin waxay u xusheen xildhibaan hore Cabdiraxmaan Dheere oo ah garabka midig ee Fahad Yaasiin ka oo laga faramaroojiyay kursiga xildhibaannimo ee uu ku fadhiyay oo deegaan doorashadiisu ahayd Kismaayo balse Axmed Madoobe uu u tashaday oo uu shakhsi kale ku qoray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan sayray xubno loo diray si loo ogolaysiiyo inuu aqbalo magacaabida Cabdiraxmaan Dheere waxaana la sheegay in Roble uu cuskaday heshiiskii horay ay u gaareen isaga iyo Farmaajo ee dhigayay in madaxweynuhu uu soo magacaabo qof la isla ogol yahay oo ay ka wada tashteen isaga iyo ra'iisul wasaaruhu si kastaba sida aynu ogaanay filla Soomaaliya ayaa rumaysan inaysan jirin awood uu Roble kaga hor imaan karo magacaabida Cabdiraxmaan Dheere marka laga reebo inuu muujiyo kaliya diidmo aan afka dhaafsiisnayn iyo qoraal cambaarayn ah oo lagu baahiyo warbaahinta gudaha hase ahaatee haddii Farmaajo uu magacaabo saacadaha soo socda Cabdiraxmaan Dheere waxay ka dhignaan doontaa tijaabo kale oo lagaga guuleystay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo markii hore looga adkaaday in meesha laga saaro agaasimihii uu horay u magacaabay ee Bashiir Goobe xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo dalaaliin siyaasadeed ayaa saacadihii u dambeeyay kamira dhalin waayay ogolaansho laga helo ra'iisul wasaare Roble si uu u aqbalo in Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo taliyaha rasmiga ee hay'adda NISA taasi oo soo dadajisay in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ku adkaystaan magacaabista Cabdiraxmaan Dheere arrintan ayaa la filayaa inay khilaaf cusub dhaliso balse iyada oo la filayo in madaxweyne cusub loo doorto Soomaaliya 2 bilood gudahood waxaa suurtagal ah in ra'iisul wasaare Roble uu iska sabro isla markaana uu u dulqaato duruufaha jira si looga dhabeeyo arrimaha doorashooyinka ee uu ra'iisul wasaaruhu mas'uulka ka yahay ujeedada ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ka leeyihiin in Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa la xiriirta arrinta sugidda amniga goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo tan guddoonka labada aqal wuxuu madaxweyne Farmaajo aaminsan yahay haddii uu Roble la wareego amniga goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya in ay tahay bilowga guuldarrada madaxweyne Farmaajo oo awood loo adeegsan doono shakhsiyaadka isaga taabacsan iyo galaangalka uu ku yeelan karo goobta doorashada iyo agagaarkeeda si aanay taa u dhicin ayuu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo go'aan ku gaaray in Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo taliyaha hay'adda NISA kadibna uu ku lug yeesho amniga doorashada oo ay iska kaashan doonaan isaga iyo taliyaasha militariga iyo booliiska kuwa oo horay ugu janjeeray dhinaca madaxweyne Farmaajo Odawaah iyo sidoo kale Xijaar ayaa iminka si toos ah u hoos jooga madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana uu madaxweynuhu doonayaa in Roble uu ka faramaroojiyo guud ahaan hay'adaha amniga oo aan gacanta ugu jirin ra'iisul wasaaraha waana caqabadii ugu weyneyd ee Roble ka qabsatay inuu si buuxda uga taqalluso awoodda Farmaajo oo wali sii jirta inuu Cabdiraxmaan Dheere noqdo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxay la mid tahay in uu Fahad Yaasiin yahay taliyaha ama agaasimaha hay'adda NISA maadaama aanay waxba ku kala duwanayn Cabdiraxmaan Dheere iyo sidoo kale Fahad Yaasiin oo ah saaxiibo talada iska dhageysta oo aan marna kala dheeraan Farmaajo ayaa labadaba ku kalsoon waana sababta uu ugu adkaysanayo madaxweynuhu in Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA mucaaradka ayaa walwal ka qaba haddii uu Cabdiraxmaan Dheere noqdo agaasimaha hay'adda NISA waxa ka dhalan kara iyo sida uu isku hortaagi karo dhaqdhaqaaqyada iyo ololaha doorasho ee musharaxiinta ka aragtida duwan Farmaajo oo uu xitaa ku jiro hogaamiyaha Puntland Siciidani oo Muqdisho ku soo wajahan si uu ololihiisa doorashada halka uga dardargeliyo haddii Cabdiraxmaan Dheere uu la wareego hay'adda NISA wuxuu si toos ah u hor istaagi doonaa dhaqdhaqaaqa iyo ololaha doorasho ee musharaxiinta ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen ayaa amar culus dul dhigay xubnaha labada aqal ee deegaan ahaan ka soo baxay koonfur galbeed kuwa oo uu kaga digay in ay heshiisyo la galaan ama ay la shiraan musharaxiinta garabyada mucaaradka ee u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya kulankii dhawaan uu la yeeshay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xildhibaanada cusub ee laga soo doortay magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo oo ahaa mid xasaasi ah ayuu ku dul dhigay dhowr amar warkan waxaa soo dusiyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo laga soo doortay Baydhabo kadib markii uu dhawaan kulan la qaatay lafta gareen xildhibaanadaasi lafta gareen ayaa laga dhadhansaday in uu u ololeynayo dib u soo laabashada Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isaga oo si hoose ula hadlay xubno uu kula kulmay magaalada Baydhabo oo uu kala sheekaystay arrinta doorashada iyo sida loo wajahayo madaxweyne lafta gareen ayaa waxa uu xildhibaanada u sheegay in dawladda uu Farmaajo hogaaminayo ay dulmi badan ka tirsanayaan
tirsanayaan oo aysan ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen ha noqoto safiiro agaasimayaal iyo saraakiil ciidan sidaa darteedna uu aaminsan yahay in haddii uu farmaajo mar labaad soo laabto inuu dib u sixi doono qaladaadkii uu horey u galay oo uu sidoo kale reer koonfur galbeed siin doono muhiimad gaar ah maadaama ay yihiin dadka uu baahida ugu weyn maanta u qabo ee ka dhigi kara madaxweynaha Soomaaliya sida uu ku andacooday Laftagareen mid ka mid ah xildhibaanada ayaa weydiiyay madaxweyne Laftagareen sababta uu ugu ololeynayo soo laabashada farmaajo mar haddii uu ku tuntay xuquuqdii dadka reer koonfur galbeed Laftagareen oo u jawaabay xildhibaankaasi ayaa sheegay in dhibaatadu ay ka timid gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo xildhibaanadii hore ee ay koonfur galbeed dirsatay kuwaasi oo dhammaantood istusay in ay danahooda gaarka ka kala shaqeystaan oo aysan fiirin danta guud ee deegaanada ay ka yimaadeen balse uu aaminsan yahay in xubnaha cusub ee hadda matalaya koonfur galbeed ay yihiin kuwa isku xiran oo amarka madaxweynahooda maqlaya sidoo kalena soo dhicin kara xuquuqda koonfur galbeed ee dawladda dhexe xildhibaanka ayaa waxa uu ku falceliyay in loo baahan yahay in guddi xildhibaano la iska dhex doorto si ay ula kulmaan musharaxiinta isla markaana loo weydiiyo musharax walba ajandaha uu wato iyo waxa uu u ogol yahay dadka reer koonfur galbeed haddii ay ku caawiyaan gaarista yoolkiisa madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee Laftagareen ayaa ka carooday hadalka xildhibaanka wuxuuna sheegay in aanay jiri karin xildhibaano laga soo doortay koonfur galbeed oo la fariisan kara musharaxiinta garabyada mucaaradka wuxuu Laftagareen sheegay in dhammaan xubnaha labada aqal ee ka yimid deegaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed ay ku qasban yihiin inay u codeeyaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu sheegay inuu yahay shaqsiga ugu weyn ee maanta u hiilin kara dadka reer koonfur galbeed isla markaana ay ka heli karaan xuquuqdooda madaxweyne Laftagareen ayaa kaga digay xildhibaanada uu la kulmay in aanay ku kadsoomin la kulanka musharaxiinta garabyada mucaaradka ee u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya kuwa oo u kala ordaya sidii ay u hanan lahaayeen codadka xildhibaanada ka soo baxay koonfur galbeed oo lagu kala hormarayo maadaama aanu koonfur galbeed ka soo bixi doonin musharax madaxweyne oo u hanqal taagaya kursiga ugu sareeya Soomaaliya ee madaxweynaha hase yeeshee Farmaajo oo isku haleynaya xildhibaanada uu Laftagareen u soo saaray ayaa aaminsan inuu gaari karo ujeedkiisa inta uu Laftagareen garab taagan yahay xildhibaanada reer koonfur galbeedna ay u hiilinayaan balse cabashada uu Laftagareen soo jeediyay ee ah in dawladda uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hogaaminayo aanay reer koonfur galbeed siin xuquuqdii ay lahaayeen ee dhinaca saami qaybsiga awoodaha dawladda federaalka sida safiirada agaasimayaasha iyo hay'adaha kale ee muhiimka ah ee dawladda federaalka hoostaga ayaa laga yaabaa inay ka caraysiiso xildhibaanada qaar inkastoo ay jiraan tira kamid xildhibaanada ka soo baxay koonfur galbeed oo mucaaradsan ajandaha madaxweyne Laftagareen ee ah in Farmaajo mar kale la dhiso si uu u noqdo madaxweynaha Soomaaliya hogaamin doona 4 sano ee soo socota digniinta uu hogaamiyaha koonfur galbeed u diray xildhibaanada ka soo baxay Baydhabo iyo Baraawe ayaa ku aadaysa iyada oo madaxweyne Farmaajo ku wajahan yahay dhamaadka bishan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed halkaasi oo uu kula kulmi doono xildhibaanada ka soo baxay dawlad goboleedka koonfur galbeed hase yeeshee kulanka ayaa calaamad su'aal gelinaya inay ka qayb gali doonaan xubnaha ka soo jeeda gobolada waqooyi oo markii hore lagu casuumay si wax ka bedel loogu sameeyo saami qaybsiga kuraasta ugu sareysa dalka ee gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ahna musharax u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ka oo salka ku haya qofka noqonaya gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Saciid Dani oo wali uu jahwareer ka haysto qofka uu ku dhisayo gudoomiyaha baarlamaanka si uu u gaaro hankiisa iyo yoolkiisa ku aadan gaarista kursiga ugu sareeya Soomaaliya ee madaxweynaha ayaa waxa uu ka helay fariin culus dhinaca hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo sheegay in shakhsi deegaan ahaan ka soo jeeda Jubbaland oo xisaab ahaan dhanka qabiilka ku abtirsada beelaha Digil iyo Mirifle in lagu dhiso gudoomiyaha baarlamaanka si uu ugu guuleysto hase yeeshee uu talaabadaasi diiday hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo rajo weyn ka qaba dhinaca koonfur galbeed inuu codad ka heli doono waxaana xubnaha ka agdhow Axmed Madoobe ee gudoomiyaha baarlamaanka u hanqal taagaya kamid ah xildhibaan Sadiiq Cabdulaahi Cabdi oo dhawaan lagu doortay magaalada Kismaayo ka oo sida la sheegay kamid ah shakhsiyaadka u hanqal taagaya gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaan Sadiiq Cabdi ayaa saaxiibo badan ku dhexleh xildhibaanada ka soo baxay koonfur galbeed iyo Jubbaland wuxuuna u baahan yahay codadka dawlad goboleedyada kale si uu u gaaro hamigiisa
injineer Sadiiq Cabdi wuxuu horay u soo noqday wasiirkii hore ee hawlaha guud iyo guryeynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna garab ka helayaa Axmed Madoobe waxaase diiday qorshahan madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo sheegay in qofka lagu dhisayo gudoomiyaha golaha shacabku uu noqdo mid laga wada tashtay oo ay ka baaraan dageen isaga iyo dhammaan dhinacyada ku xiran ee kooxdiisa ololaha iyo dawladaha gadaal ka riixaya musharaxnimada Siciid Dani taa oo ka caraysiisay hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo sheegay in haddii aan la isku waafaqin shakhsiga noqonaya gudoomiyaha baarlamaanka uu isna ka weecan doono ololaha uu Siciid Dani ku dhisayo ee la xiriira inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya Axmed Madoobe wuxuu iminka ku magacaaban yahay madaxa ololaha ee Siciid Cabdilaahi Dani waxaana uu ku wataa Siciid Dani dhinaca hogaamiyaha Jubbaland dan weyn maadaama ay Jubbaland soo saarayso xildhibaano ka badan 50 xildhibaan oo ku biiray labada aqal kuwa oo haddii ay Siciid Dani biiriyaan siinaysa aqlabiyad iyo awood dheeri ah oo uu ku hanan karo kursiga madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee haddii ay labada dhinac ku kala qaybsamaan qofka noqonaya gudoomiyaha baarlamaanka waxay u badan tahay inay ku kala boodi doonaan taasina waxay dhabarjab ku tahay Siciid Dani oo sanadkan dadaal kasta u huraya sidii uu hanan lahaa kursiga madaxweynaha Soomaaliya waxaan inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaa TV